gabadhna way ii joogtaa uurkii labaad baan leeyahay odayga ii yimid wuxuu yiri abshiri hada salwa hee meel la yiraahdo magaalo hiblaayo fog oo gobol fog ah oo magaaladan aan deganahay xataa ka fog ayaa waxaan ka furanaynaa aniga walaalkay mashruuc ganacsi baan ka samaysanaynaa waan korarayaa waxaan kugu celinayaa guriga hooyada aniga walaalkayna waan israacaynaa halkaasaan kasoo ganacsanaynaa anigu waxaan idhi may guriga hooyada hay igu celinni islaan dhan oo meel degan baan ahay oo hadda ilmaan dhali rabaa mid baa ii joogta halkan aan iska deganaanaya adu gobolka aad marna halkan igu imo marna gobolkaaga aad maayo yiri lagama yaabana waa inaan koraraan guriga hooyada ku geeya anoon in yarna raali ka ahayn baa la isoo raray waxa la igu soo celiyay gurigii hooyo hadii la igu soo celiyay anigii waxaan dareemay marka si nafsiyana inaan u xanuunsado tacbaan noqdo sababtoo ninkaygu mar walba ii rarayo mar walba dhinac iigu sii wado hooyada iyo walaalkay way i karaxsadeen anaa isbiila wax walba oo ama aanu baahdo ama ilmahayga yar ugu baahdo anaa baxsada sababta iigu ii karaxsanayaan xataa waan naqdibsaday waxa ay dhalatay gabadhaydii labaad markay ii dhalatay odagaygu waxaan ku yiri khalaas hada anaga reer dhan baan 3 qof baan ka koobanahay ma joogi karna 24 saac guriga hooyo guri noo kire oo gurina dajin wuxuu yiri maya waxaan meesha ku maqnaanayaa muddo 6 bilooda 6 bilood bil kasta waxaan idin imaanayaa 4 bari 4 bari guriga hooyo waan ka soo guurinaa waxaan degaynaa hoteeladan diyaarsan ee apartmentiyada yani hoteeladu ay kireeyaan qol iyo fadhi iyo musqul iyo waxa isku wada diyaarsan ee lacagta uu la bixinay alaab iyo waxba la soo iibsanayna hoteelkaasaan deganaanayna 4 bari kadib hadana waxaad ku noqonaysaan guriga hooyo 6 bilood kadib markay shaqadu ii dhamaatana hal meel baan si toos ah u degaynaa 6 bilood sidaan u tirinayay ugu dambeyn 6 bilood way dhamaatay 6 bilood markay dhamaatay maxaan sugayaa anigu marka in shaqadii soo dhamaato guri la dego si toos ah meel loo dego si orodka la joojiyo hoteeladan la degayo rafaadkan sida dad يعني laba wadan ku kala nool ninku sida inuu qurbo ka iimaanayo kala anaga dhanba sibaan u rafaadsanaa oo aanan badad yani hagaagsan u ahayn markaas wuxuu yiri markaan ku 6 bilood soo ma dhamaanin markuu yimid bishii uu iimaanaya 4 barida waa inaan hadda guurnaa waa inaan guri si toos u degnaa wuxuu maya shaqadii waxaan ku darsanay 6 bilood oo kale aniga waan xanaaqay waxaan masaa doontaa iska yeelaysaa ma waxaad rabtaa iska ka hadlaysaa maxaa ka qaldan 6 bilood baan isku ogeyn 6 bilood way dhamaatay 6 bilood oo kale ugu darsanay 6 bilood kale hadaad maqnaanaysid laba midyaal ama rar oo meel alaale meeshaad ka shaqeynaysid nagee gobolka aad ka shaqeynaysaa aan kula degno ama waxaan u baahanahay inaan magaaladan guri naga dajisid anaka kaliya aan guri deganaano guriga hooyaday inaan deganaado kuma qanacsani habbi kuma ihi wiil walaalkay joogo reer male caruur iyo xaasiya naag iyo waxba male ilmaha yarka qayladoodii waxaan uu dibsanayaa markasta ani wiilkaas waan isku dhacnaa marar fara badan baa intaan isku dhacnay oo muranay buu idilay xataa uu iigu gacan qaaday caruurtayda hortooda caruurtayda ii aragta buu ii gacan qaadaya waxaan rabaa marka inaad laba mid yeeshid ama inuu walaalkay ii gacan qaadayo waxa uma sheegayo inaan guriga hooyada dibsanayo waxa isaga uma sheegayo laakiin waxaan ii habbi kuma ihi guriga hooyo guri noo kirey ama nabad wuxuu yiri maya hada adna hadashido talisid anna aan hataliyo adna aad talisid meesha waxay noqonaysaa booq iyo dood iyo waxay noqonaysaa fawdo anuunan 4 bari idin la joogan idin ka noqdaan idin ku imid inaan idin kaxeeyana idin kuma imanin meel inaan dejiyana idin kuma imanin 6 bilood oo kale inaan shaqada ku darsanayna ogow haye hadana mar labaad isdhiib waaye iskaga soo noqo gurigii hooyo sidii uu hadana arrinka ku socoto 4 bilood markuu maqnaado 4 yani bilba hadana 4 bari ha yimaado hadana saas ha yimaado maalin maalmaha kamid ah aniga walaalkay baa isku dhacnay aniga hooyo waa isku dhacnay aniga dhabsi baan u fikiray waxaan dareemay rafaad waxa igala shaki waxaan isiri sababtu ninkaagu meel ku dajisan lahayd maxay tahay waa dadku waxay sheegayaan biilku iska yareynaya iyo kharashku iska yareynaya miyana kala miyuu qaba aniga fikir baan galay isagii baan wacay waxaan ku yiri anigu ma doonayo inaan guriga hooyaday joogay niyo adaa ay qabo mas'uuliga ee guri ma idajisanaysaa mise ima dajisanaysid wuxuu wax guri oo ku dajisanaya ma lahe ama joog guriga hooyada ama hadaadan joogaynin oo sidan hadda aad yani ku nooshay aadan ku qanacsanin maxkamadda waa taqaanaad maxkamadda ma tagtid maxkamadda tag oo iska soo kayfo way heebaan markaan waabad igu meysatay rafaad baaban ku noolahay naag la qabo hagaag meel u degan mihi naag xor oo madax banaan mihi waxaan oo kala guurba ma ahe waa ma ka dhaxbaxaya adiga dhanba waxaan u tagay hooyaday iyo walaalkay waxaan ku anigu ninkan waan iska furayaa waxay dhadan iska fur labadoodiba isku mar لا ما جرت وانا iyo shaydaanka iska naar caruur baa meesha joogto waxaas ma jiraba
waxay raahdeen ninka kuma doonayo malyan jeer baan kuu sheegnay adaan fahmi waaye iska fur ilmihiisana farta ka saar intee farta uga saar ilmi maba joogay hooyadii u geey hooyadii baan isku magaalo deganahay waxaan idhi maya hadduuba ra'yigiina saas yahay balaayaha idinla tashato si aan u tuuraa aniga ilmahaygan doonaya anigu inaan haysto ninka waan iska furayaa maraba laakiin ilmahayga waan haysanayaa waxay igu dhahdeen maya ilmahaaga banaanada ku haysa marka ninkaas hadduu ku furo ilmo uu dhalay ma joogayo gurigayga laba mid unbaad yeeli ninkaaga inuu ku rarto meel ku dejisto raacdid iyo inuu ku furo ilmihiisa farta ka saartid aniga waxaan idhi maya ma dhici karto say ku dhici kartaa inaan ilmahayga tuuro haddana waa gabdho labadeeda gabdhood maan tuuraa may isagii baan wacay waxaan ku idhi diyaar waaye maxkamaddaan tegaya ani adigu waan kala tegaynaa markaan kala tagno ilma inaga dhexeeya xaq iyo xuquuq baan isku leenahay waxaan rabaa dee ilmaha biilkoodii masruufkooda inaad meel u saartid masruuf iyo biil iyo ilmaha ka fikirin buuri ilmahayga hooyadiiba iyo haynaysa hooyadiibaad iigu geynaysaa intaan kala tagno ilma inagamaba dhaxayn isaga hooyaday walaalkay waaba isku ra'yiba aniga basaa ka ra'yi duwan waayo anigu waxaan ahay ilmahan hooyadood ilmahayga inaan tuuro ma rabo haddaan wada joogno iyo haddaan kala tagno waxaan diyaar u ahay inaan gabdhahayga korsado anigu maxkamadna ma tegin meelna ma tegin sidaan u fikiray bishii baa dhammaatay wuu isoo wacay lacag buu iisoo diray wuxuu igu yidhi marka waxaan degaynaa meeshii hoteelkii waan imanayaa 4 beri ka bacdina waan noqonayaa markuu imanayo isagu uu soo socdo wuxuu iisoo diri jiray waxoogaa yaro lacag yacni oo isku sii hagaajiyo saaluunkaygii waxaygii shoppingkaygii aan ku samaysto intii ay hooyaday walaalkay igu yidhahdeen ilmahan iska tuurnay kana iska fur isaguna igu yidhi haddaan kala tagno ilmaha hooyaday baad iigu dhiibaysaa isaguna igu yidhi noloshan haddaadan ku qanacsanayn maxkamadda aadee adduunyada ilaahay waa waasic ciriir iyo kalif ilaahay maba abuurinba ama saan ku habi ku ahaw ama haddii kale maxkamadda waa taqaanaa anigu buuq iyo doodna uma baahni aniga marka waxaa igu bilowday fikir inaan fikiro ilmahan ma tuurtaa maya ilmahaaga seed ku haysataa ninkana aad kaga takhalustaa ma jirto way aan ahayn inaan ninka la noolaado marna uu iraro marna uu soo celiyo marna uu sii wado marna uu soo wado saas ubad carruurtaada ku haysan kartaa 6 bilood uu sheegay iyo 6 kale hadduu ku darsadan bal aakhirka meesha isugu soo biyo shubto uun arag ilmahaagana iska hayso saasaan go'aan ku gaarsan u fikiray saaluunka markaan tagay xataa naagta timaha ii hagaajinaysa timahayga way kala foojin kari weydayba waaba fikiraa uun bishanba madaxa waan dhaqaa shaliid ma mariyo waxba uma hagaajiyo heer waxaan ku sigtay timaha in la iga xiiro xataa markii la kala furfuri kari waayo ugu dambeyn timihii waa la ii hagaajiyay nafaqo borotiin waxbaa la ii mariyay waa la ii hagaajiyay cilaan baan soo marsay anoo qurux badan baan guriga imid guriga markaan saa u imid hooyada yaab inteed isu hagaajinaysa soodigii ninka isfurayseen ma isma furaynaan ku dhahay waxaas waa isir dagaalsanayn markaa hadda waan heshiinay saas miya ahaa mid nin la heshiinayso uma ekida ninkaasi mid ku rabo uma ekee sababtaad isla nabaysid waxaad isla dhiga adkaysinaysid kuma garanayo saanaad qurux badan tahay dhalinyaraad tahay sababtaad bahdilkan iyo dulinimadan u qaadanaysid ma garanayo dhaga hadal niyad jab balaayo qaylo waan aadnay aniga carruurtii hoteelkii baan degnay ninkii wuu yimid saan markaa joognay muddo 4 beri meelahaas iyo wuxuu 2 beri baan ku darsanayaa 6 beri baan joogay 6 beri kadib baan tagayaa maalintii shanaad anigoo guriga iska dhex socdo meeshan hoteelka yareen deganahay isaguna uu jiifo taleefankiisuna uu dab ku jiro waxaa soo wacay taleefankiisa walaalkii waa walaalkiisii ay isla shaqaysanayeen ee isaguna xaaskiisa marba hooyadii u geynayay marba dhinac xaaskiisa isaguna u waday isaga iyo walaalkii waaba isku hadafba in xaasaska kulba dhinac loo rariyo masiibada dhan waaban ogaan doonaa walaalkii baaba ka dambeeya walaalkii markuu soo wax marka kama qaban inuu walaalkii waan u jeeday isaguna wuu hurday waxaan isaga ku celin doona markuu soo kaco cabaar kadib taleefanka agteedu yaala dab buu ku jira waxa ku soo dhacday fariin waxay kadib haddana waxa ku soo dhacday fariin haddana waxay kadib waxa ku soo dhacday fariin waxaan